السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى السلام يا أصحاب تقاليقا سو دوادا أصحاب تقاليقا هاي فيديو لايك سبسكرايب iyo share isugu dara. waxaan halkan ku sameysanaynaa quraac fudud oo easy ah oo nafaqo leh. hadaba ila socda walaalahayga wiilasha ardayda iyo gabdhahaba intaba. halkan waxaan ku haystaa asxaab taqaaliga hay barbarooni aan noocyada barbarooniga oo si aan usoo jaray sidii oo warwareeg ah. waxaan kaloo halkan ku haystaa basal asxaabta qaaliga. waxaan kaloo halkan ku haystaa beer. maanta waxaan sameysanaynaa beer lo-aad oo sida beerka ariga oo kale ama se kaba macaan. asxaabta qaaliga anaga beer arig la cunaa. runtii beerka ariga lo-da waa heer sare iyo xabad liin ah. asxaabi saliida aad markay kuugu kulaato ayaan basasha ku darsanaynaa. basal badan ayaa maanta isticmaalaynaa waayo basasha faa-iidooyin aada u sareeya ayay leedahay. indhaha markaad jajarisid way ku xanuujinaysaa laakiin fawaa-id badan ayay leedahay. sidaa daraadeed basasha waa inaan ka faa-iideysano. asxaabta qaaliga walaalahayga basasha markay iisoo gaduudato waxaan ku darayaa qaado ah toon aan soo tumay. toontuna beerka waxaa fiican toon kaliya in lagu sameysto, laakiin anaga aada iyo aada ayaan waxaan u jecelnahay basashana caafimaad badan ayaa ku jira oo waayo basasha lafaha way u fiican tahay, way dhistaa. sidoo kaleeto basasha waxay u fiican tahay waxyaabo badan. bakteeriyada xun ayay caloosha ka dishaa. sidoo kale bakteeriyada nooceeda fiicanna way soo korisaa. aada iyo aada ayay u fiican tahay oo weliba sokorta dadka sokorta qabo way u fiican tahay. hargab haduu ku hayo way u fiican tahay. halkan xabad liina ayaa waxaan ku darayaa beer lo. hadaa heli kartid dibi yariisa beerkiis okay, hadii kale lo-da dhan way fiican tahay. xabad markaa dabka ku shubaysa ayaa xabad liina ku dareysaa. runtii beerka lo-da weliba dibiga yar iyo midka ariga way isku dhigmaan aada haduusan bakaba macaaneyn. fiitamiinada ku jirana ma maleyn kartid. asxaabta qaaligahay basasha fawaaidkeeda waxaa kamid ah haduu hargabku hayo oo xabad basal intaad dabka saartid markay ay soo karto biyaheeda aad xabad liin ah iyo 2 qaado oo waxaa loo yaqaano malab ku darsatid oo isku tuurtid koobka hargabku kaa kala jabayaa. sidoo kale basasha fawaaid badan ay leedahay. waxaan ku darayaa asxaabta qaaliga beerka waxaa lagu daraa xawaajiga dhuudhuuban ama xawaaji bariid, dadka isku af ma ahan kii aad u taqaanid, iyo filfil bes, xawaajiyo kale ma lagu daro. asxaabteeda qaaliga runtii aad buu wuxuu ugu fiican tahay basasha dadka dhiigkarka qaba, dadka sokorta qaba, kolestaroolka, wadnaha oo dhiiga wayba filtaraareysaa. waxaa loo yaqaan basasha aada iyo aada ayay waxay u leedahay fawaaid aada iyo aada u sareeya oo caafimaadka way u wanaagsan tahay. waxyaabo waxyeelana way leedahay, waxtarna way leedahay oo wax kasta ayaa basaasa. beerka way soo bislaan rabaa wax yar oo hore milixaan ku daraya. haddana milixa qof walba asaga siduu jeceliyo ugu daraya. in asxaabta qaaliga marka runtii basasha indhaha horta qofka biyo ka keenay ka ilmeysiinay urkeedana ma fiin. halkan waxaan ku haystaa basbaas. sidoo kale basashii aan si warwareega usoo jaray korkaan uga daraa markuu beerka ii bislaaday, iyo barbarooni 3 nooc haystaa laakiin adig ka haysataa ku darsanay. ani gaduud iyo cagaar iyo jaalle iyo basal aan si warwareeg usoo jaray ayaan korka uga darayaa. quraacda quruxna way kaaga dhigayaan, macaanna way tahay. basasha faa-iido aada u sareysay leedahay. barbarooniga dhiiga ayuu siyaadiyaa, asaga dhan waa bir socota maasha allah. runtii aada iyo aada beerkuna waabad ogtiin aniga hadda fawaaidkiisa idiima sheegayo. walaalahayga qaaliga ah dadka caloosha ka jiran oo gaaska ka qaba basasha uma fiicna. weliba waxaan ku darayaa aakhirka ugu dambeyntii intaasaan ku darayaa. dabkana waan ka daminayaa. saas wuu ii bislaaday beerkayga jaa already. asxaabta qaaliga runtii basasha aada iyo aada ayay u wanaagsan tahay oo aada bay u fiican tahay. basasha hadaadan xataa nooceeda basal baarka loo yaqaano cagaarka markaa quraacanaysid hadaa cuntid hadaada masaajid aadaynin ama aadan bixaynin urkeeda aada urku ku dhibeynin aada ayay u wanaagsan tahay. waa idinkula talinayaa basasha way fiican tahay. asxaabta qaaligahay hadda ani beerkayga waa ii diyaar, wuu ii bislaaday. marka dabka waan ka daminayaa.
oo waa diyaar. Sandwichaad baa ka sameysanaysaa 5 daqiiqo kuguma qaadan. Haddaa wiil tahay haddaa gabar tahay had dadkii isku wada mid waxbaa la baranaa, dadkii ehelka waa laga fogyahay. Marka xanuunaa jira, fayrasyaa jira, waxyaabaha guriga lagu kariyo ayaa wanaagsan. Marka waxaan idinkula talinayaa walaalahayga qaaliga ah, wiilasheena waa lasoo kibriyaa, hooyo ama walaal baa maanta dhan jikada ugu jirta. Laakiin asxaabay hadda dadka isku mid bay noqdeen, wixiina ku tuurta maqaayadaha waxa ka cuninina inay duruuftu idinla gasho mooyaane waxa aad gurigaaga ku karsatid wax ka wanaagsan male runtii. Marka halkaan waxaan ku haysanaa jibsiga. Markaan soo shiiday baradhada korka waxaan uga daray xawaaji iyo filfil macaan ayay ka dhigaan. Sidoo kale salar ayaan haysanaa iyo cabitaan noocii aad jeceshahay. Haddaba quraacdeena waa diyaar. Asxaabta qaaliga walaalahayga intaa inaan idinla wadaagayaan jeclaystay. Videoga like iyo share iyo subscribe isugu dara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.